In badan oo inaga mid ah waxay u socdaan inay hantiilayaal noqdaan, iyagoo mar uun rajeynaya inay dhiisha faqriga tuuraan. Laakiin waxaa dhacaysa in marar badan aan samayno khaladaad si ula kac ah ama aan ahayn oo sababa in ay faqriga weligood ka bixin. Haddaba daawade, halkan waxa aan kugu soo gudbin doonaa 5 qodob oo kaa hortaagan inaad dhiisha faqriga tuurtid, noqotidna qof hantiilo ah oo hela dhaqaale ku filan. Warbixintan waxaan idinkaga soo tarjumay qoraal uu qoray milyaneerkii reer Mareykan Steve Seipold. Qoraalkan waxa uu milyaneerka kaga digayaa samaynta 5 khalad ee ku diidi doona inaad faqriga ka baxdid. 1. In aad noqotid shaqaale mushaar la'ah. Qofka caadiga ah bil kasta wuxuu ku xisaabtamaa mushaar u go'an oo saacadaha uu shaqeeyo ama shaqada uu qabanayo ku xiran. Laakiin dadka taajiriinta ah waa dad intoodii badan iskooda u shaqaysta oo mashaariicdooda gaarka ah ka howlgala. Inaad qof kale u shaqayso waa wadada ugu ammaanka badan ee bil walba aad wax la hubo ku heli kartid. Laakiin haddii hamigaagu intaa dhaafsiisan yahay oo aad doonayso inaad noqoto qof taajir ah, waxaa lagama maarmaan ah inaad abuurato shaqooyin kuu gaar ah. 2. Inaad yeelan weyso hadaf nololeed. Dadka hantiilayaasha waxay sameeyaan geesinimo badan, waayo aragnimo badan iyo dadaal aan kala go' lahayn si ay u tiigsadaan halka ay rabaan, ugu dambeynna way gaaraan. Haddaba haddii aadan lahayn yool cad oo nololeed oo aadan garanayn sanad walba halka aad joogto, taa micnaheedu waa inaadan faqriga ka bixi doonin weligaa. 3. Inaadan samayn wax maalgashi ah. Maalgashigu waxa uu lagama maarmaan u yahay inaad lacag abuurato, waxaana laga helaa xurriyad dhanka hantida oo cid kastaaba ay ku riyooto inay samaysato hanti u gaar ah oo ay ku shaqaysato. Haddaba haddii aad doonayso inaad guulaysatid, bilow haddaba maalgashiga. Markasta oo aad xilli hore maalgashi bilowdo, waa arrin ku wanaagsan. Ogow, dadka qaniga ah inay sanad walba ay maalgashadaan 30% dakhliga soo gala. 4. Inaad u bareeri weyso khataraha mararka qaar aad la kulantid. Qof kasta oo doonaya inuu horumar sameeyo waa inuu khatarta u bareeraa oo khayr iyo sharba uu ku tashadaa. In badan oo ka mid ah taajiriinta dunida waxayba ka helaan inay khatarta u bareeraan. 5. In aad aaminto inaad weligaa hantiilo noqon karin. Qofka caadiga waxa uu aaminsan yahay in lacagta iyo hantida ay helaan dadka nasiibka badan oo qura. Laakiin sida dhabta ah, casriga aan ku jirno cid walba si sahlan ayay ku taajiri kartaa, oo waa haddii ay nafteeda aaminto. Ugu dambeyn, waxa mustaqbalku noqonayo cidna ma oga, laakiin waxaa habboon inaad markasta naftaada hormariso si aad u gaartid halka aad tiigsanaysid.